كاد قرنيسين ابن حزم الأندلسي الظاهري شيخ أندلس كنورا ابن حزم لدهي مذهب كظاهرية مذهب ذوها كتاب أوليه إلى طوق الحمامة كتاب أوليه ولا يراهده طوق الحمامة wuxuu yiri Andalus waxa ku sugnaa Andalus ama Spain meesha loo yaqaan waaga hor islaamka u yaqaanay Andalus meeshii u yaqaanay islaamka haddana loo yaqaano Spain wuxuu leeyahay waxa joogay nin ganacsada ah oo caan ah dadka dhan deegaanka aad u yaqaanaan dadka deegaanka aad u yaqaanaan isaga iyo afar nin oo ganacsato ah ayaa waxa ka dhaxaysay loolan xagga suuqa ah badeecada xaggeeda loolan dheer baa ka dhaxeeyay way isku caroodeen waxa dagaal dhex maray isaga iyo dadkii afartan nin loolan ka dhaxeeyay waxay go'aansadeen inay ka xanaajiyaan ayna ku cayaaraan ka dhigtaan wax lagu qoslo ay ka dhigtaan maalin maalmaha kamida waxa uu ka baxay gurigiisa ninkan taajirka ganacsada ah isagoo u sii socda suuqa iyo dukaankii uu ku lahaa wuxuu xirtay qamiis aad u qurux badan oo cad cimaamad aad u qurux badan oo ayadan cad wadada intuu sii socday afartan nin ee taajiriinta ahaa oo u soo tashaday ninkan isaga inay ku cayaaraan ayaa mid kamida wadada kula kulmay wuu salaamay ninkii ganacsadaha ahaa ee sida quruxda badan khamiiska iyo cimaamada cadcad u soo qaatay ayuu salaamay kadib uu intuu cimaamada eegay ayuu wuxuu ku yiri cimaamadaada jaallaha ah qurux badana cimaamada jaallaha ee xiran tahay qurux badana ganacsadii wuxuu yiri ma indhahaad laadahay indhool miyaad noqotay cimaamadayda way caddahay ninkii jaallo weeye jaallo si kastoo ay u tahay haddana way qurux badan tahay ganacsadihii uu isaga tagay uu ka dhaqaaqay dhowr talaabo markuu sii qaaday baa ku kala haddana wadada kaga hor yimid oo kamid ah afartan nin ee colaadda u haysay ee waxay ka dhaxeeyeen loolanka wuu salaamay markaasuu cimaamadiisa eegay markuu salaamay buu cimaamadiisa eegay markaasuu wuxuu yiri alla maanta qurux badnida dharka aad wadato qurux badana gaar ahaan cimaamada cagaaran ee sida qurux badana ganacsadihii wuxuu yiri warniyahow cimaamada aan wato way caddahay markaasuu yiri ma cadee way cagaaran tahay markaasuu wuxuu ku yiri way caddahay ee iga tagsoco ay igu dheeldheeline uu dhaqaaqay isagoo eegaya cimaamadiisa darafkeeda shaki baa galay cimaamada isagoo eegaya darafkeeda ayuu ka dhaqaaqay ninkii isaga ahaa balse uu hubsado inay cimaamadiisa caddahay iyo inaysan cimaamada caddayn markii uu dukaankiisa gaaray ee qufulka uu damcay inuu furo u foorarsaday si uu qufulka u furo ayaa kii saddexaad ku yimid markaasuu wuxuu ku yiri hebelow maanta aad baad u qurux badan tahay gaar ahaan dharka aad wadato wuu qurux badan yahay waxaa quruxda intaa la-eg maanta kuu siyaadiyey waa cimaamadan buluugga ah ee aad wadato ganacsadihii intuu cimaamadiisa eegay si uu midabkeeda u hubsado indhahana uu gacanta saa u marmariyay bal inuu isaga wax arkay inuusan waxba arag dadkan waxay sheegeen run yihiin ayuu wuxuu ku yiri walaalow cimaamadayda way caddahay ninkii wuxuu yiri ma caddee cimaamadaada waa buluug laakiin waa cimaamad aad u qurux badan ee waxba ha murgin uuna ka dhaqaaqay ganacsadihii wuxuu bilaabay inuu qayliyo uu yiraahdo war cimaamadayda way caddahay isagoo dhahaya ayuu dukaanka furay rogrogaya cimaamada bal inay caddahay in kale xataa shaki uu kaga jiro waxa uu fariistay dukaanka gudihiisa markuu yar fadhiyay oo uu cimaamadana aad u eegayo uu leeyahay dadka saddexda qofood waxay isku raaceen miya beena mise indhahaaga waxay arkayaan cimaamadan cad baa beena kii afraad baa u soo galay wuxuu ku yiri ahlan hebelow maasha allah xagee cimaamadan guduudan ka soo iibsatay cimaamadan guduudan xageed ka soo iibsatay intuu qayliyay wuxuu ku yiri cimaamadayda marna waa buluug marna waa cagaar marna waa caddaan marna waa madow marna waa noocan
markaasuu intuu qoslay uu haddana qayliyey uu haddana ooyey markaas wuxuu bilaabay inuu boodboodo afartan nin ee hadallada kala duwan u sheegay darteeda ibnu xasam alandalusi shaykhii lahaa madhabka daahiriyada caalimka ahaa wuxuu yidhi waxaan arkayay buu yidhi maalinkaa wixii ka dambeeyey ee afartan nin sida ay ugu ciyaareen Spain ama Andalus wadooyinkeeda isagoo wareegaya oo ninkaasi waalan yahay caruurtuna ay dhagxa ku tuurtuurayaan ayaan arkay buu yiri ibn Hazm al-Andalusi qisada iyada waxay noo faa'iideysay dhowr qofood haday isku raacaan ruuxa bini aadamka waxa uu yahay wax ka duwan qofka bini aadamka inuu shaki galayo saaka hadii qof intuu ku yimaado ku dhaw indhahaagu way cagaareen ma cagaarshow baa ku hayo ku kale intuu ku yimaado indhaha guudana madaaf baa ku hayo ku kale uu ku yimaado reer indhaha saaka si wax ka yiin maxaa dhacay shaki baa ku galay maanta oo dhan waxaad isku eegaysaa muraayada ayaad isku eegaysaa marun baa mise waa been wax la sheegayo qisada labaad ee qaadan waxay tahay dhaxal bakhaylnimo dhaxaltooya ah hanti waa la iska dhaxlaa cudurro qaarna waa la iska dhaxlaa laakiin bakhaylnimo la iska dhaxl lama sheegin waxa la sheegaa nin ayaa wuxuu u soo martiyay nin saaxiib isaga la ah martiba inoo timid aad u qadarin badan agtanadii ku weyn wiilkayow orod oo bax magaalada iyo suuqa tag hilib inooga soo iibi wuxuu yiri orod oo bax hilib inooga soo iibi wiilkii yaraa ayuu wuxuu u diray inuu hilib u soo iibiyo martidii iyo aabihiiba wuxuu ku yiri orod oo tag nus kiilo hilib ah oo aad u wanaagsan inoo soo iibi wiilkii yaraa wuu tagay markuu muddo soo maqnaa waxba ma uusan soo iibinin wuxuu u soo laabtay gurigii aabihii baa wuxuu ku yiri hilibkii aan kuu diray aaway wiilkii yaraa wuxuu yiri aabbo waxaan u tagay ninkii iibinayay hilibka kawaanlihi waxaan ku iri waxaad nasiisaa hilib wixii wanaagsan agtaada yaala hilib cad oo jiiro qurux badan iga sii ninkii kawaanlaha ahaa wuxuu yiri waxaan ku siinayaa hilib sida farmaajada u cad baashan jubniga carabta u yaqaanaan farmaajo la yiraahdo ee rootiga lagu cuno hilib noocaasi u cad baan ku siinayaa waxaan isiri buu yiri aduuba wax cad ku siinaya hilib cad ku siinaya sida oo farmaajada oo kale aan dukaanlaha u tago farmaajada ka iibsado aduuba isiinaya hilib sida farmaajada u cad dukaanlaha intaan u tago farmaajada lafteeda maan iibsado waan baxay buu yiri dukaanlihii baan u tagay waxaan ku iri nin yahow farmaajo nooca aad haysabida ugu wanaagsan isii wuxuu yiri buu yiri waxaan ku siinayaa farmaajo sida bariiska oo kale ayaan ku siinayaa waxaan niyada iska iri buu yiri haddii uu isiinaya farmaajo sida bariiska oo kale maalintan dukaanka hebel taga ka iibiye bariis dukaankii hebel baan tagay waxaan ku iri warniyahow bariis wanaagsan isii wuxuu igu yiri buu yiri waxaan ku siinayaa bariis sida biyaha cad oo kale ah biyaha saafiga oo kale waxaan niyada iska iri buu yiri haduuba bariis sida biyaha u cad isiinayo guriganagiiba biyo aad u qurux badan oo cadaan badan oo nadiif ayaa yaalo marka aabbo waan soo laabtay waxna ma aanan soo iyo cadaan la sheegan guriga way yaalaan aabihii wuxuu yiri alla maxaad wiil aqli badan tahay bakhaylnimadii buu ka dhaxlay lacagtii baa soo laabatay laakiin martidii lama eegayo wuxuu yiri alla maxaad wiil aqli badan tahay laakiin hal mid baad ilowday buu yiri wiilkayow aabbo waa maxay buu waxaan ilooway wuxuu yiri intaad marba dukaan tagtagaysay kabihii ayaad iska soo dhamaysay socodka aad socotay kabaha ka soo dhamaaday wiilkeeda wuxuu yiri aabbo maya saadi moodamaan aqli waan leeyahay kabaha aan soo dhameeyay kabahayga ma ahan ninkii martida noo ahaa kabihiisii ayaan xirtay halkaasi waxa uu ku waayay ninka martida ahaa waxa uu ku waayay kabihiisii oo halka lagu soo dhameeyay iyo marti sooridii uu sugayay intaaba marka waxa la yiraahdaa dhaxaltooyo bakhayltinimo oo dhaxaltooyo ah sida ayaa qisada ciwaankeeda uu yahay inta ayaan insha Allah ta'ala labadii qisa caawa aan idinkugu talagalay insha Allah ta'ala ballan qaaday idinku siiyay hada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh